السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada asxaabteeda qiimaha badan ku soo dhawaada YouTube-kayga Mulsaqa Media. Waxa martiin oo inala jooga Abwaan Daayar Farxaan Cabdiraxmaan Aadan oo ku magac dheer Abwaan Sheer. Abwaan soo dhaw. Waan dhawahay Munay. Ku soo dhaweynaya YouTube-kayga ku soo dhaweynaya. Aad iyo aad baan u dhawahay. Abwaan Sheer marka la yiraahdo. Sheer maxaa sidee kuugu baxda? Su'aashaas dad badan baa isweydiiya. Waqtigii horta yaraantii ama ciyaalmadii waxa shiri jirtay laba nin banu saaxiib ahaan jirnay anagu nin Cabdicasiis Mawlid Cismaan baa la dhahaa nin Cabdiraxmaan Xasan Ciise labadooda halka ma ka salaamayay teeto teamkayaga kale baanu maalin walba ka gooni baanu ahaan jirnay saddexda is raaci jirnay maalmaha ka mid ah lagu yiri maalin walba was raacdana xaga tagtaan anu bas sikadiisa ugu yiri anagu magaalada aanu share kulanay saddexdeeda share kulan magacii teamkayga buu u baxay team share baa la oran jiray wixii ka dambeeyay markii hawlihii iyo dadkii ay kala hadheen magacaan ugu soo haray Abwaan Sheer markaas ku saxay waayahay Abwaan Sheer maadaama yar tahayba xillimaad bilowday inaad hal abuuro waxa la abuurto wallahi Munay waqtigii aan bilaabay waxa ahayd 2019 waay laakiin wixii ka dambeeyay ilaa 2021 inta u dhaxaysay aaminaad badan man haysan oo wad yara baqbaqaysay waan yara baqay waay laakiin markii dambe waqtiga waan bilaabay laakiin xilligan aad ka ugu soo jeestay 2022 ilaa wixii ka dambeeyay waaya ma xasuusataa ereyadii ugu horeeyay samaysa haya jacayl ma ahaayeen wadan waa calaalbe waay dhanka calaalka ka bilowday dhankaasan ku bilaabay waay waxa kamid ahayd horta nin aanu saaxiibnahay oo maalinka safar ban ku soo wada socnay Booramahay waay ayaa dhowr hablood buu la sheekaysan jiray waqtiyo kala duwan mid kasta la sheekaysto wala guursadaa waa laga guursaday habeenkii tii u dambeysay la guursan doono habeenkii anagoo ka soo socno Boorama ayaa lagu yiri inta la soo garaacay Reebleey la guursaday haye ninkii baa halkii naxdino eriyada ay soo dhacay markaan oo ag fadhiya hadba ruuxan calan suro calmashada ku doortay cishqiigu haloosiyo indigayga laabtii cirfiyada wadnaha dhigo maxaa loo caruusaa maana cilada jacayl maxaa loo caruusaa maana cilada jacayl hay cuduntan jacayladan ka ciisayaadmiga calaf baa sibo cala masaaro cayn ma noloshaydu وعين من الله شيء ما سداتي وريسين تري وإن كاسنا سيد ورد الدنكوها واي لكن حويا على فاك لك هي غدر لقى بس حق يصير ذلك سقابنا ساسنا ورن كرنا واي مركن كان ما دام صدا سيكو ريسي ما سوين كاغو جعيل على ودن يدين تبو يسوق جرا بل هتهدي نو سوق من لدعاو ما سوق ريسي سوق قبل لها ما سطر الله يدعو سوق قبل لها واي maadaama talada laga maarmay waaran waxa jirto waqtiyada qaar qofku inuu meel uu noloshiisu marayso meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto inuu garan waayo uu waayo jiitaan dadka aan hal abuurka ahayn qoladan hal abuurka ba maasooyinka uu ku soo qabta sax laakiin ninka hal abuurka isaga maasiisa isku soo qabanayo isaga dawladda isku haya marka maansada talo si guudna ay khusaysaa sida kalena waa maasal wada leeyahay marka waxay oranaysaa adduunka ragii tabcaday tiriigiyo leedh u shiday koba nooluhu tirsanin ku tagay sahaniyo aqoon waxay tamar gelinayeen biliya sanadiyo bile nafihay qeyrka tagay maxay talada tahay u tuuro waayaha gadaal ha tuman maantee dadaal ha toogsan adoo bad qaba tumaaliyo gooray tahay xamaali tunkaaga raro waxaa tuman 100 abaal hadmaad guditaada dhiman qofku intuu yar yahay tacab badan baa la geliyaa dhaqaalaha ku baxa fikir iyo dadaal baa ku baxa waxa la doonay hadhow waxan inaad soo celiso hadda soo celin weydo waa abaal ka dhacbad gashay weeyaan tusaale adoon fogaan u fiirso waxbaan ku tusi ninkii cisho ruux wax tara haday tahay tixtirsade intiis iyo taam ka sugay haday mar xumaan timaad manada ugu sheegay taas dadkuna waa wada tabtaas لأنك هذا في الصدى ما تكون بياك ورابيو بريتو نوح كهسوي إن تكون شراب ورابيو ورنا حنا يقفك هبلها بريبند أبالغ شدة وأبالغ يسوع علم واي فتضحفوا ضد الصوها تضغط في سكول عدانا أنت صون كوجو ما نشجعني يسوني يقول لي بكو قدوم شريك وكوران يا موت تبتيه ميلاد الأقاق ترحان ترح شال تباح تواوع شوش بدن تبي حيش السماء حتاهن على علدا tushiyo tuurtaada raro tunkaaga ku qaad xambaar kuwii ka dhigay tisqaad
tagoogtaadoo ka jaban tanaad ruux yahay tanaad tahriibka ka waaqso hooy tanaad leedahay aduu ka beer timir iyo nabaad ها واحد هيسطا wax ku ah wuxuu nin kale oo qeyrka leeyahay daweynadu diiso tolkaaga ha dhaafsan maal nin xumeysho ku tusho ha noqon tarankii ka tage ha noqon tuugii wax dhaca xaraan ku talaabsan jiray hatta xaraan ku talaabsan jiray ha seegin mar toobada intaan taashkii cadaa jirkaaga taabsan wali cadaab iyo naar ka turo dadkii wax ku soo garab istaago inaad markaa garab istaagtaa ha sugin inay gooltimaad tamaam adigoo hurdo ha filan hami taaba galaa ha moodin tog soo qulqulay rajadu waa tacab baxee waxaan noolahu tirsan waxaan rabbi taabagelin miyuu noolahu tirshaa tilmaan hadafkaaga yool tabaabashahaaga yeel waxaa tabanaysa sheeg wixii tamayuu ku sirin wixii togan ha iska lumin naftaada tacliin u noqo markay gaabiso tahliil tafsiirka qur-aan uge jecraac waayahayna tegay tiknolojigu lahaa tijaabi waxay faleen tixgeli ruuxii ku dhibaa dadkii hore waatuu yidhi kabtiisu nimay tolayn ha sugin inuu kuu tolee dantiisa midaan u tirin muxuu noolaha taraa qofaan naftiisii wax u qaban ha sugin inuu adigana wax kuu qabto ha toogan hankaaga bilan rashada towraha ka saar tuskii curan laaha celin tolaa iyo weyl hadhow intaad ceel tufi lahayd hadeer waqti kaama tegin tusmadu waa bilow mar kale u tali waayaha tigtigan ha sugin tooshiyo iftiin tiriigii ladhin lahay ku dhaafi turxaanta leyl waxuu qof isagoo ku meel maray uu la soo baxay ha sugin inuu adnada kugu soo saaro marka waa maaso dheer intaas iyada inagu soo koobaya waayahay maanse kale iyadan halkan ku taala aad leedahay waxaan dhamayaa xasuuso habeen dhamidii ma seexdo booskaad ka dhaqaaqday hooyo ayaa layga soo dhacay adduunkaad igaga dhooftay miyaan dabadaa ku dheefa allahu akbar munaayi qisadan horta waa qiso dhaba qisadan waxaa ku dhacday inan yar oo da ahaan yar inantaas kolkii hore hooyadeed baa dhimatay allaha u naxariista hooyadeed markay dhimatay aabaheed baa inanta yareed qaatay aabaheed reer horu marka horeba iska lahaa reerkii hore uu lahaa buu geeyey reerka hore waxaa ku nool caruur ay gabadhiisan kala dhashay oo aanu isagu dhalin oo gabadh ninka hore u dhashay inantaasi wax walaala oo wuxuu qabtaa ma jirto waa keligeed hooyadeed keligeed bay dhashay hooyadeedna dee ilaahay lahaa baa qaatay deeto inantaas waxbarashadii baa laga saaray shaqadii guriga ama waqti walba iyadaa ku qoran intaas waxaa u dheer canaantii baa u dheer dilmadii baa u dheer yacni aabaheed habeenkii markuu yimaado waa lagu deeto waa lagu diraa isna habeenkii markuu 12 yimaado uu dilaawn inantaa maalin aan la dilin horta ma jirto deeto waqtiyada ka mid ah bay aniga qisadayga sheekaysa adduunka markay ka waday cid garab siisa xataa kii ay aamintay ay jacaylka la wadee ay la sheekaysan soo kaga baxo duruuftii kaga faa'iidaystay isaga nafsi ka raadin karta islahayd kiina ma ku jacaylkii ma ku dayacay waxay samaysay garaweydo habeenada ka mid ah way jeebsatay dad xasuus bay gashay nafteeda waxay ka dhigtay inay hooyadeed dhambaal u dirayso dhambaalkaas hooyadeed inuu gaarayo weliba hooyadeedna ka soo jawaabayso marka waxay tiri waxaan dhamayaa xusuuso magaceeda horta maasada wata waxay ku bilaabmaysaa dhammaystiran hooya qaalib dhadhaab baa kugu dul xeeran dhoobiya ciid baa ku haysaa ogsooni dhammaan xogtaada ha yeeshee waan dhibtooday dhambaalkani waa fariine adoo iga dheer dhegayso waxaan dhamayaa xusuuso habeen dhamidii ma seexdo booskaad ka dhaqaaqday hooyo ayaa layga soo dhacaye adduunkaad igaga dhooftay miyaan dabadaa ku dheefay kuwii dhalay dharbaxay kuwaan la dhashaa iqoomay midkii dhalaa ka dhowhan saygaan u dhaxaani dhowran dhibtuna waa geeridaada waxaan dhamayaa xusuuso kuwii dhalay ee aabaheedu ka mid ah hadday xumaynayaan kuway la dhalatay ee aabahoodu dee dhalay hadday xumaynayaan kay u dhaxday naxariis iyo maya laakiin guur bay ku ballameen ballantii buu ka baxay hadduu kaasina xumaynayo deeto waxaasoo dhibaataa baa iskugu tegi moogta farxadi way iga dhammaatay
dhulkii murugada ku nooli ilmadu dhabanada dareertay qalbiga dhaawacu ku yaalo waxaan ku dhayaa ma noola waxay tiri markaan isweydiiyo warweel waatan waa lagu dilayaa waa lagu canaananayaa waa lagu caayayaa waa lagu xumaynayaa sida dhibaatadan uga baxdaa markaan isiraahdo qalbigayga odhanaya de hooyadaabaa nool ilaa hooyadaaba waxaasoo dhan kaa dulqaadi lahaa soo maaha qalbiga dhaawacu ku yaalo waxaan ku dhayaa ma noola dhankaanu ka caabo baaba waxaan dhis idhaaba baaba dhaqaaqay ma dhaafin goonta dhammaystiran hooya qaali dhaankii murugtaan raraayo waxaan dhamaya xusuuso raraayo waxaan dhamaya xusuuso reer abtiga haddaan u tago aabbahay weji umuu dhigan aan kula noolaan karo ilmihiisi baan ahay kiibaa dhalay baa la odhanayaa markaan reerka kala ansira ku nolowna dhibaatadan iga haysata albaab kastoon garaaca iga xidhay habeed qalbiga dhaawaca ku yaal waxaan ku dhayaa ma noola aqoon waa layga dhaartay miyaan dhigta shay dambeeto sowtaan dhexle howlahooda sow kaa dhabarkii daalay waxaan dhaqayaa dasuusda dhambaalkani hore ka fiirso aqoontii waa laga saaro waa laga dhaartay gurigii baa la doonaysaa inay ka shaqayso waqtigan ay hooyadeed ay imaginationka ugu diraysa fariinta waxay leedahay waxaan dhaqayaa dasuude dhambaalkani hore ka fiirso dilmaa ii dheer gumaysi dharbaaxadu waa saleelo dhawaaqa xunbaa iqoomay dhegteedu waxay warqaado dhaliil iyo cayma dhaafo qalbiga dhaawacu ku yaalo waxaan ku dhayaa ma noola qofka haddii la dilo wax laga jaro laga tago jismiyan unbuu u dhaawacmayaa laakiin marka hadal qalbiga lagaaga dhaawaco waa dhibinteeda laag waxay tiri dhulkaa ku hayaan u sheegay dharaarahan kuu imaado abaal ii dhigo markhaasa dhaayaha ii saar ii dhiirshaa laakiin i dhegaysan waaye dhawaaqaygii ma gaadhin xabaashaada markaan soo dul joogsado baan dhulka ku idhahda hooyaday tus dee ma dhul baa ku maqlay dheehiyo midabkaygu guuray dhalaalkii igama muuqdo tin iyo caday baan ka dhuubtay ma cuno dhuunin iyo anfaaco miyaan dhow seexday waayo waxaan dhamayaa xusuuso muuqaal ahaan bay isku bedeshay qalbi ahaan jismi ahaan qofta dhibaato iyo garaacis iyo hadal xumo lagu hayo ma naaxayo qalbigaanu qofku ka degayn intaa markay hooyadeed u dirtay bay istiri intaa haddii hooyadaa intaa maqli lahayd maxay ku odhan lahayd dee way kusoo dhiirigelin lahayd deeto inay hooyadeed hadalkii qaadatay bay ka dhigaysaa waxay tiri goobtaan dhalayay dhegayso waa hooyadii goobtaan dhalayay dhegayso dhulkaan ku jiraa ogsoonid ifkaan ka dhammaaday hooyo inaan dhinto maan jeclaysan wad baa i dhuftay dhegayso dhambaalkaagiina dhooxay dharaaro xun baad jirtaaye dhabarka hooye adkayso waxaa ku gaadhay hooye waad ii sheegto waan maqlee dhabarka adkayso dhabtayda intaan ku seexsho haddaan kula joogi lahaa maxay qaban lahayd dhabtayda intaan ku seexsho dhabanka kuu yaro salaaxo ayaad dhab u seexan laydee waxaan dhex hurdaa xabaale itaalkaa dhiiro hooyo marada dhexda giijo hooyo waktaa dhalay aamin hooyo inaan kala dhimano hooyo taasi waa intii adduunyada waa laga tegi aakhiraa la tegi xisaabtii ilaahay baa taalla booyinta la iska dhaafi maayo waxay tiri cishaa iman laysdhexyaaco cishaa iman laysdhexyaaco adduun laga soo dhaqaaqo qiyaamuhu dhici dambeeto ilaah laga dhuuman maayo xaqaaga ku dhaafi maayo dadkii kugu dhibay adduunka ilaah baan kuugu dhaartay dharaarta waad ka aarsan maadaama aanu adduunkii joogin xaqaagii aakhirad hooye kuadkayso maasitaasay ku edashahay waxaan uga faa'iidaysanayaa waalidiinta haya caruur aanay dhalin sida agoomaha iyo rajahoo kale inay dhibaatada ka daayaan ubadkooga inay uga naxariis badnaadaan dadka iyagoo og ilmahan inuu waxaweyaan xanuun dareemayo ayay haddana sii dhibaateynayaan haddana weliba wiilasha malaa la yara qaatay hablaha aada ninka ragga hadduu dooxaa wuu seexan karaya waxaa laga yaabaa dhibaatadaas inuu ka cararo oona u adkaysan laakiin inantii waxsoonas xagad qaban waa hilib bisil shaqaa lagu dilaya hadal xumaa lagu dilaya wallaahi qofka hooyadii u nooshahay ee ilmo kale hayso ay u dhibaateynayso wallaahi guna muu jirin kan waad u nooshahay kana hooyadii waa dhimatay kan hooyadii dhimatay naxariis badan sii subxaan allah
laakiin walahi ma garanayo way taabatay maansadaas waayahay waxaa ku xigta iyadana haldoorka naftow hal aan ku fare hadiyo goortaan hohay ku arkiyo ilaa hadda waxaan u hamuun qabaa inaan ku antoon dharaarku hele hirbaa hawada maraye hanay mar qurun horteeda iskeen waay maasan horta waxaan tiri 2024 bishii 11 horaanteedii maalin maalmaha kamid ah ayaanu soo raacnay hooyaday Faadimo Maxamed Yunis ilaahay cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka waxa uu barakeeyay waxaan imanay dhakhtarka weyn ee Hargeysa anigu dhakhtarkan way ka hor ku jiray oo qalliin aan ku galay marka dhakhtarka ay la balansanaa soo noqo hooyaday baan wada soconay soo qaybtii laga baahnaa markaan ka soo dhamaanay hooyadayba waxay ugu tiri gabadh baan soo eegayay inay maray raac hadda way dhimatay gabadha Allah u naxariisto deeto qaybtii qalliinka dumarkii hooyo gashay halka igu sugay ku tiri halkii baan ku sugayay intaan hooyaday laakiin iga leexan waxa naga soo horbaxay laba hablood labadan hablood mid buu ilaahay tiida qurux ahayd uba dhameystirayba aan waxba ka reebin ma sha Allah deeto subax bay ahayd saasan intuu eegay cadeedii iyadii waxba is wada qabtay deeto nafteeda igu tiri inaan mid baratid deeto war haddana hooyadaaba kula socotay xisho iyo iska soco waan dhaafay hooyadii qaybtii bay gashay ana albaabkii weyn istaagay labadii hablood sanay noo dhaafeen kulkii hore labadii hablood soo noqdeen inantii aad ka qurux badneed ba soo horeysa saasana nagu yeeyaa waan yaabanay inantii bay salaantay magacaygo saddexan bay waliba igu salaantay ma sha Allah waxyaalaha la yaabay kamid tahay moogta waxay ii sheegtay inuu waliba dhakhtarka ku jiray maalin duhurana ay timid oo hurday kalkaalisooyinka heedna waana kalkaalisada kamid ahay deeto anigu 950 su'aalood baan isweydiiyay horta markuu qofku aanu caan ahayn dadka shaqan ama waa familkiisa ama waa friendskiisa labada mid waxa sircaan saana uma tihide inaad si kugu garata qofkan ma ehelka mise waa asxaabta su'aalo badan baan isweydiiyay deeto inantii horta waxaan xasuustaa inay igu tiri duhur dhawina dhakhtarkan kuugu imid qaybtaas oo wad hurday inaan tan yahay anu waan baxsanahay mar quruxdeedii baa maskaxdayda rogtay mariyay tahay waxyaalo fara badan baa isweydiiyay inantu way iga dhaqaaqday su'aadkoogii bay iska sii wateen markay laabtay aniga miirkayga caadi soo noqdayba waan sirwarnay inantan ma lambarka ka qoratido horta qof magacaaga saddexan garanayana ma oran kari sidii inaad riyaa tahay waa ceeb deet waan kasoo daba dhaqaaqo waxaan siraahday barbal inantan iyo horta inta lambarka ka qorato hadhow caadi warayso kolaad lambarkeeda saada ku baadhaba deeto aad ku baadhaba deeto inantii way laabeen waan kasoo daba dhaqaaqay dadka aada iskugu badnaa dadkii bay ga dhex gashay inantii nasiib daras maanaan arag maalinta isniin bay ahayd qolooyinkan kalkaalisooyinka neersuna waxay galaan shiftiye u galaan iyo maalmo gaara haddaan munaa ku idhaahdo malaha 3 wiig baan isniin kasta imanayay dhakhtarka inaad aragto markan dadkii aanu asxaab tahayna meesha ka shaqeynaysaan weydiina inanta magaceeda la weydiiya war magaceeda ma garanaya inanta dhakhtarka ugu qurux badan oo sheegay markeeda ama garaas deeto markii dambe maasadana sameeyay maasan waxa inanta ma hesho sidoo kula inantii wallahi ma helin sidii baan ku laayahay mar dambana ma raadin sidii uma raadin waxaan leeyahay horta inantaas haddaan arko haddii wareysiga aragto walaal waan ku salaamay cidda tahayna soo sheeg maasadaana qaado adan ku sameeyay wuxuu yidhi maraan heerka cayaarooryo horaad haween dhowran hor joogsadayba mid heega la moodo aan ka hele intaan uba heesa aan hal tirshay qofoo heladan hooyo baluge xataa qofka heladan u geenaya lama garanayo iyadii baa la garanayay waa qof unday qofoo heladan hooyo baluge hilaac sidii ayaad hiraso ishii ku haleeshay baa hadlasee hadeerna naftaad ka haw tiriba haabhaabatayon halkaad ka tagtee haddaan ku helayni way hadime hanay murquran hortayda iskaan marka inanta magaca hanaan u bixiyay hagoogta xishood adaa huwado hugaaga xijaabka waan ka helay haweenka dhan baad horumoodu taho adaa helin toosan hortiisa socdee horaan kuugu sheego ma ka hadhaye hanay murquran hortayda iskaan haldhaa dumar ee quruxdan hodanka hoobaanta bislaatay ee hohobta
timahan hufan ee adhaxda dul hurdaa midabkan horaya hilaac la midka hilbahan qorqormiye lixaadkan hayaa dhaayihii ku hirtaa ilmadu halatee miyan dib haween hadal boo furaa hoygaad ku kortaa hanaan wacanaa hooyadii ku dhashada horaad ka shaqdaa weersamaa laga hayay inantu mar haddii qurux badan tahay inta kalena naga ugu darna way wanaagsaneed akhlaaqad bay lahayd intaba dee walimaka waxaan leeyahay hoygaad ku kortaa hanaan wacana hooyadii ku dhashada horaad ka shaqdaa haybada sharafta iyo hufnaanta cidoon hidaha gabadhnimahana dhaxasho halkaana adaa samaa ka hele miyaan hantida cilada ka hurdaa iyadii baan garan lahay hebel gurigoodii iyo hooyadii maxay geeyey hoygaad ku kortaa hanaan wacanaa hooyadii ku dhashada horaad ka shaqdaa haybada sharafta iyo hufnaanta cidoon hidaha gabadhnimo hanay dhaxasho halkaasna adaa samaha ka hele miyaan hantida cilada ka hurdaa doorka nafta ay halaan ku fare had iyo goortaan hohoy ku arkiyo ilaa hadda waxaan hamuum u qabaa inaan ku heloon dharaarku hantee haddaan ku helayni way hadime hanay mar qulan hortayda iskeen humaagi khiyaali bay hodayee qofkuu hamiyaan habeen ladino hurdaanu gam-ayn ma hoygalaye hubaal qalbigaad hantaaqa bido adaa horiyo hilaac ku shidee hadmaad ku dhexertay aada habaysa hashii kudhay baan hadhoobisitaa haantii luntay baan hambada ka sugaa tabtii hayinkuu hogaani hayaa intaa himiliyo waayahay gabadha iyadaa wax rajeynaya inaan hello waynu raadinaynaa mar kale aynu raadinaynaa hadday dhambaalkan maqashana iyadaaba soo jawaabi doonta waaya waxaynu gelaynaa waa calaacal beed baan filaya maansada naf yahay la cadaadinayo dareen ciilkaambinayo miyaad cabashada taqaane miyaad soo toostay caawa haye maasadan horta waxay ka turjumaysaa labada qof markay xiriirka leeyihiin mid baa tegaya kan taga waa ku hadhow jacaylku ku dambaynayo horta labada qof ee isjecel jacaylku si buuxda tusaalahaan 100% uguma wada dhacayo mid buu ku horeynayaa ka kalena ku dambeynaya deeto qofkii ku horeeyay maaykii ku dambeeyaa tegaya markuu tago nafsigiibaa soo qabanaya jacaylkii baa markiisii ku soo dhacaya deeto qofkii ka tagay wuu ku soo laabanaya marka maansada waxa hadlaya qof laga tagay oo lagu soo noqday bal muxuu u tagayba markii hore haduu soo noqonay waay waxay yiri nafi hayla cadaadinayo dareen ceel kaambinayo miyaad cabashada taqaan maxaa ku soo cusbaaday wuxuu nafi hayla cadaadinayo dareen ceel kaambinayo miyaad cabashada taqaanay miyaad soo toostay caawa anoo galgacayl la ciiray jacaylkii soo cadaabay suudiga caaridayay maxaa kugu soo cusbaaday cilooti markaad weyday codkaygii maad u xiistay sidaan kuu caawinayay miyaad cidi ku daryeeshay haddii cishqigii ku gaadhay markaagii caashaqootay cilada waa tii horeysay anugan caafimaaday aday ku taalla bagaad caynkay ahaatay bagaad ceeshkii ilowday bagaad hurdadii cilowday sideeda bagaad cadtooday waxaan ahay caadi maanta adiyo waa caawadaada sidaad shalay ii ciqaabtay ayaad u cadaami maanta dartay cisbitaalu jiibso heesaha dartay cisbitaalu jiibso heesaha cumar dhuula daaro calaacalna waa hubkaaga iliw casharkii jacaylka nafsiga maal caanihiisa caboo ku ilow dareenka nafyi hayga goo caloosha rabbiga caafimaadka tugso adkayso markaaga caawa adoo caafimaade ruuxda cirkana qabo waa dantaada cidhiidhi ku jooga adduunka calaacal intaad karayso marka waa inaan waxa leedahay anuun raggu maaha caawa waxaad heli geesi caana naf yahay calafkaaga raadso cindiga iga saar walaalo wuxuu yidhi caruur yahay aan jeclaaday adoo caqli maad lahayne waxaan helay coro dhamaysa cajiiboo wada garaada naftaydana ciilka dhowra kashaad cadibtay daweysay colaadaadii ka raystay warkii cadi waa wanaage caruus baanahay khamiista arooskaygan kuga cusumay baytir farxadaydii arooskaygana igala soo qayb galdee aduna xanuunka maba naxay xataa u naxariisan maayo xataa waayahay
ما انسى halkan iyadana aan ku hayo allow single-nimo safkeed ka baxa way maansada single-nimo ma adiga ku qosaysaa mise waxaad ka samaysan dhalinyarada single-ka horta single-nimada dantun bay nagu wada haysee ma jirtay برا laga bixi lahaa hadii fursad la siiyo salaadii qof walba qofkiisa caawa la siiyo single-nimada waxa laga bixi lahaa 2 saacadood gudahood gabiyayba waarone marka maasadan anuuna gaar u qaadan maayo dhalinyarada single-ka oo dhan baan matalaya bahaa waynu qaybsanayna way noo qayb warinta way waxa oran samaasadani anoo sabiyo jacaylisay sadkayga adaa hoonku sugay adaan sadriga iyo qalbiga ku sudhay sidaan ku ahay marun saansho xanuunka sadray qalbiga ka safee dartaas huuyowga surmiye dartaas karaadka caashaq sigme naftayda ku siiyay dhabku ugu sidee aduu sawirkaagu sidii siliskii sababka ka lushaa ilaa sarartii haye adaa sababo sareynta hele salaanka jacayl saraan u kore sawdkaaga sanbaa maqalka u sadee adaan si kastaba macaan ku saxee midaan kula sima ma saarneefke badhankaas samada socdaalka ahayd waatan qofka lala yareeyaa la yiraahdo ma xoraayntii jannada tan xataa xoraayn iyadu ma ahe waxa sanadnimo malaha waa samaawi astaghfirullah erkay ka soo dhacday adaan noqday sayska salkii noloshayda adiga ah sirtayda sanduuqa wax kaysa adiga ku salaysan sambabkayga iyo jirka sararteedii feedhayla seedaha gaadha yaa sidaada uu uman sadra adduunka samayskiyo jaaha suuradaada sawracaaga iyo muuqa samayska naflo looma samaynin sidaada allow hayse jinsigeeda noqdaa allow sabigaygu sinteed ku gamaan ka socday haween allow suntadee allow si kunun sumada ku dhigta allow singalnimo safkood ka baxaa sariir iyo jiif allow saldhigaa sidii sunnaheena siin ku helaa allow u samre aan sawjad helaa allow sodogayga saaxiib noqday allow sodogayga saaxiib noqon hawluuna maxay leeyihiin allow sodogayga saaxiib noqona waaye inta sikreegtay waan soo koobay marka wax leenahay dhalinyarada single-ka rag iyo dumarba waxweeyaan ilaahay ha idinka saaro allah inaga wada saaro baashaas waa dhib badan tahay waayahay dhigiisa ka doortayow dhankiisa u jeestayow naftayda u dhiibayow qalbigu ku dhaatayow dhakhtarkii noloshaydiyow adaa iga dheelmado naftii ku dhimanaysa way baltaasina waa jacayl baan filaya say tahay iyadoo maasadani way ka duwan tahay dareenadii hore way qisadeeda hore ugama sheekay uga waran caawa way horta maasadan waa inan baa dareenkeeda ka hadlaysa way anuu ereyadun baan leeyahay laakiin ujeedada iyo odhaahda inan baa iskale way horta markan lagu jiro labada qof ay xiriirka leeyihiin kala fogaanshiyahooga waxyaalo fara badan baa sababi kara waqtigii baa ka mid ah faamilkoo suukiin diido idinkale kaxeeyaa ka mid ah nacab iyo dad idinka dhex shaqeeyaa ka mid ah geeridii baa meesha tahay waxyaalo fara badan calafkii qoraalkii baa ka mid ah horta markaa maadaamuu kala tuguu 59 weji leeyahay wejiga ugu adag waa ka geerida kaasa ugu xanuun badan waa ka dee qofkii aad jeclaydo hal mar ugu dhahdo uu dhintay ama way dhimatay waa dareenaa laga soo kabshan karin waqtigii 2021 baanu anagu inaan banu aad saaxiib ahayna wada socon jirnay haddayna kii waa dhintay allah u naxariisto inankaas xaafadooda waxaa la geli jirtay xaafad kale marka gurigayga lahaa reer baa kale ku geli jiray annaguna waqtigaa dee isaguna iskubadii waxbaan iska ciyaari jirno dhalinyaraan isku xidhanoo markaan kubadda ka imanno xaafadoodan iska tegi jirnay halkaasina iska joogi jiray aniga laftarka isagu u iman jiray waxaan ahay 2 qof oo dee iska walaalaa waxaa dhacday ilaahay wuxuu qoraalka ka wado ciidama joojisay inan reerkan guriga la gala inantoodii uu inankii ka helay waana labadan reerna waa laba reero aad isku fahmay isdhexgalay dad walaala ah oo meel wada degan bay noqdeen ninkii waxaa ku adkaatay sidii inanta dareenka ugu sheegan lahaa anigu intuu muddo igala meermeeray ii sheegay waan la yaabay wanaanu inantan walaasha baan aqaanaa baan kuhi isku guri baatiina macquul noqon mayso iska daa dee haddana qalbigu kaama idan qaato muddo markii inanka jacaylkii ka dhobo noqdayba
isagii inantii intuu tago ma odhan karayo dee waan isjoognaa waan ku rabaa ma odhan karayo gurigii baa la wada joogaayo dee xumaan baa meesha imanaysa hadday isdiidaan anigu arrinkay daray wuxuu yidhi haddaa saaxiibkay tahay hawshaa dhamee waxa saaxiib laisku yahayna waa in wax la wada qabto iyadoo bir igaga adag anu horta waxaan haystaa ruul ama sharci odhanaya saaxiibka walaashii ma damci kartid lama hadli kartid ma sheekaysan kartaan anu ruulkaasaan haystaa inantana maadaama isku guri yihiin oo iska walaalo camal yihiin walaashii baan u tiriyey bir baa igaga adkeyd inaan ku idhaahdo haddana way dhacday markii koowaad inantii waan u bandhigay horta waxay noqotay in inantii aan lambarkeeda helo la hadlo la xidhiidho aan dee uga horeyn anagu aanu isdhex galno tii markay dhacday markii koowaad baan inantii arrinkii baan u sheegay way la yaabtay horada maalinta igu tirnay waxaan wax shaqaynaya maaha iga xisho xaggeed igu wadaa mar labaad baan isku dayey mar labaadkina sidii silaab baa dhacday saaxiibkii baan sheegay waan ku war arrinkan arrin naga soconaya maaha inaga dah aniguna sidaydaba haddaan shay 2 jeer isku dayo heegi waayo mar saddexaadka iskuma dayo waan niyad jab dhawahay markii saddexaad bigulnimo markaas ku taxalooshay isku day mar kale markii dambe markii saddexaad baa أنا ننتي عارفين كيو بندقي ننتي وحيو تري السوق في سايقة صح هذا كوسو درسانية واي صاحب كنا ده قلنا بيابا منا لدار يا منا لدول قبنا يا مركي ننتي هور شو وحنا ولا كريو وني وداعية وداعية أضو حبيان هذا الكود ده المناي لبدي قفان سكو حراي إن كنا ننتي وشاقي ويس وذا السعودية وسدح كلان دي لو وقفوا شو مرور بسار كيش حيلكوا وهير صاروا نغنية إن أنت ند إن كانوا وقت يسكيران تيو حيل كيران توي أنا حيل هربك مرجعين هو ويجوا سبوري كان يران تناد وهو البديل وارونه ودل حبل مركب السعوديين أنا ورت ماسك قاعد بحيدت كان لما أنا حنا نحكي القلب ما فعلا ماسك قاعد بحيشتودي بودوتين لحبل مركب السعوديين تاريخنا كوباجن تايلا بدي يكون كويلاتنكي بشي سيدات تودبي لبعتين كذي مع الخميسة وينان كيجو أنصت إنه تسافر بحو بربرة أنا ورا ما دام الأهل صاحبي هم حنقولنا نصرعنا وأنا جو أنصناي مركبيني مسكين مركنا كوهشيني أنا واسكسوه يدي إسنا حافظ وتيمرها حل يرد من كرة تجني حافظي مركن تجي يعني هو يدي يشاكت السفر عبدو حد كان رياض تجي إن أنا حاجة بري أن تجيو أي ألعاب يهودو هولا نعاس وحلا يقدر أيوه سفر كي ونقضي إنا كباغضو أنا كبر بركة باغض صاحب كمان دائما بيحيو حيدي عن كتري كريه كتران كلورو كوسد عينيه سيد مركه هذا أنا صبحي سفر كي واسك جلاي يسوقنا سفر كي بو جلاي طبعا كيسبحنا مركه ولا مركه جل صواعي وحلا يشتري إنه قاعد يجلا داعي يشتري إنه جلاي إنه نت صاحب كان قال إنا لله إنا إليه راجعون دي وي إركا يلقى من اللي من الفوق بس كلام واي ويابي نحدين كدب عبدنا صباحي إحنا من هركيسان من مقالة إمد سنو سوسة من كوريتي كوريجيو تمركب بلاغ دعنا ومت بس لو كوريجي أنت أي شوكتنا ولا قصوا علنا ولا واسع ولا قصوا علنا الله نحري وين هاي كوريجي أنا مد إن أنت يو حنركي دقائق ده هيسو اللي هيتش من باقي وين علي حافظ وحي موديان يعني دولة شارنمو أويس شارنمو أويس لكن ما أوين شعيل من الشيء أنا يقول مر إن أنت بان أجا مر صاحبك يوريودي بان حسوسته صاحب كرت حقيبة ويمد ولا تحسنا ولا جو حكومي وارم لكن هو حتى هاي قدرن قف كنا ولا قلبي يصير أنت قلبي سحنوني ولي بإنه مروضة أنا جو أم بقول كيف كنت سببها ها تضو مالك هرت مال إيجا أتكد مالك كل بعد نروش يديجو أتكد بهالمال كاس كتي بدونك ولا أصلي بيني مسكي قرية وصناعي قرية من سكيرة شوكي إن أنتيو أنت قرية كل كهرة لقى كحيي أنتي قال لك يدب مال كلا لقى أتنا لسه عليه بيني متك تري قرية قعرية ودي أنا في بكسرين بقرية أيقو تري بالمركب مسك حلقة قرية هدي ولا شوكي لها أيه حول بون نقلها waxaan qorshaystay inuu mustaqbalkayga noqdo eraya noocaasa kadib habeennimadkii waan tegey xaafadii baan iska tegey maansadan dhammaan qoray habeenka waa jimce waa 2021 bishii 8aad 8 kadib noqonaysa habeennimadkaas waa jimce duhurnimadka waan socnaa aniga walaalka ninkayga way
تبيك مركان تجد هرد ما شرته وار قرقلن هراء أبان أتنا عن توصي أنا سيدي سكوجر نفر لبيه تمك الدهر نميلا كودي مع عبارها سنة ولا كيسر عنه وأنا تنميل لا رابط تلاله أنا قوي ودو أيو قاري جنا لده إذن كينا أنا جي هو تانو قعن تاني يلوك تاني كشوي سدح بلود بن شيفي سدح تاب بلود بن شيفي ما بالكيجي من أرق إذا أصحاب مال أنكلا حريرو إن أنتي إذا كور يستوون واي صح لكن ما سن هبيني متكان كيمة يجمعوها هبيني متكجمعها بان ما صدق قرأ كذب ورقد ما قرأ ورقد ما صدق وحلا سدح بلود كذب ورتين أنتي ما تمر عليه مالك السجنته ما قرني لكن مروا البون تعين ولا حنا نقرأ بدن يفرح سيو قروح badan si qasada waan kugu dheereeyay inantii baa hadla soo xatay dhigiisa ka doortayo dhagiisa u jeestayo naftayda u dhiibayo qalbigu ku dhaatayo dhakhtarka nolosheediyo adaa iga dheelmado naftay ku dhimanaysa mid kaan dhaar ugu maro inuu dhexirkay furo ragana uga dheelmado cishqiga kii ii dhigee dareen igu dhaamiyo rajada kii ii dhiseen dhabtayda ku seexiyo malago ku iga dhufto markaad iga dhimateed dunida ka dhaqaajisaa nafteydii dheelido cilada ruuxdaa dhigtaa ilmadu ku dhammaatayo dhaqsana kuu doona soo xusuusuhu dhaamiyeen dartaa dheef waan jaro cuntana maba dhadhamiye haddaan dhugan laamaroon dheehii wejigaa kolqudha dhaayaha kuu baabaa dharaara mabsuudila hurdana waan ka dhaartayoo habeen saqdhaxaad ayaan dhaxanta meermeeraya anoo dheeligu da-aan haddana dhidid hooraya naftaan dhooldooliya murugta dhaafdhaafiya inay iska kaa dhigtaan dhabtii ugu waaniya dhammow dhammahaygiyow tiirkiya dhidibkaygiyow nolosha dhammi waa naco irbaaxaan kala kulmee ayaa qeyrkay dhaafin nafteydana dhiirin doona sida adigu dhowran doona halkaad igu jirtay ay bixin doona weyaan dhamacda kulile dabkaan dheegiya ku hayaasintee dhuuxayga uu shumee wadnahan dhiigii ka baxay talow dhakhtarkiisimee sidii dhimir baan ahoo hadiyo goor waan dhurmaa dhaqaaq socod baan ahoo inaan marihii dhigtaan dartaa ugu sii dhowo waxaanu dhaxaa cidlada dartaa baan dhimanaya intaas waa calaacalkii haddii uu adduunyada ila joogi lahaa waxyaalihii ay u samayn lahayd mustaqbalkii noloshii ballamihii ma garanaysaa waxay tiri inaan ubad kuu dhaloon dhabeelana kuu korshoon misena qoys wada dhisnoon hantiya maal kuu dhaqoon dhagaysto waxaa tiroon dhammaystiran kuu noqdoon dhaliilana kaa tiroon nacabka kaa dhiciyoon guushana kugu dhiiriyoon farxadda isla dhaabnabaan qorshaha meel noo dhigay dhulkaadiga hoos martay miyaana ku dhowrsadeen hadeer dhiigaygiyo intaa markay tiri way xasuutaa daranta in geeridayahay inaanu soo noqonayn inay duca iyo samir un taagsato iyo dib ka xasuusato waxay tiri hadeer dhiigaygiyo dhibkayga hallaan baryaa inuu nabarkay dhayo dhaawaca iga soo bogshee waxaan hadal kaaga dhigay dhoobiya dhagax baa ku hadaya dhadhaab baa kugu dul xidhan ifkana ka dhammaatayo adduunka la dheelmateen inaana dhacayn mar kale inaan dhaxal kuu noqda samroo hadalkaaga dhigay dhammow jannadii tago ka dheerow jahanabo su-aalaha dhami garo rabbigu kaa dhowr cadaab farduuso ku dhaadanow anina dhabarkaan adkayn waxaa igu dhacay macaan rabbii qadar baa dhigee samroo hadalkaaga dhigay bay tiri samroo hadalkaaga dhigay wallaahi waa cashi waxaa la yidhi waa geeridaas qalbiyo badan waa jabisay laakiin waa lagu wada xukuman yahay wax ugu xanuun badan geerida wax ugu xanuun badan waalidka iyo qofka jecesha waaya gabagabadii baynu maraynaa qalbiga ruux baan u xidhay qudhana dhaawaco ka tegay waa las dhaawacayaa marka horena jacayl baa laysku abuurayaa hadhowna waa layska tegaya maxay tahay sababtaas talo iyohow horta xaasidnimo miya in qofka laga tago inta marka hore jacayl lagu abuuro horta waxaa jirta dadka qaar baa qof bay jeclaa way ka helayaan qofkii markay ka helaan bay qofkii jacayl bay uba dhiganayaan qofkii markuu ogolaado uu soo jeesto buu xiisihii meesha ka baxaya diduu ka jeesanaya
isna wuxuu oran ama uu ka jeesanaysaa suu kaga tagaya ama wuxuu oranayaa war nin hadhow baad ka tagayay joogo qofkana jacaylkii wixii baba ka dhab noqonayo oo iska hawada siinaya oo meel aanu ka soo noqon karin markuu gaarsiiyo ayuu heeg u goynaya marka ka helitaanka hore jacayl ha u malaynina ka helitaanka hore jacayl ha u malaynina iswada dhiibina marka hore ilaa qofka ka hubinaysan inuu ku jecel yahay yalla soo wada bixin baan oran lahaa sax waa sida inta saatalaan u siinay iswada dhiibina marka hore waay marka ma soo waxa la yiraahdaa karaanka qosladu anuu noloshan doonaa iskaga jiray bal adigu da iska faraxsan waxa wuxuu yidhi qalbigan ruux baa xidhay qodhana dhaawaco ka tegay quruun baan ahay ku nool qolfood fiya ruux dhintee wadnahan qubanaya dhiig qalliinka qofkii marshow miyaan kaa quusan karin adigoo i dhaawacay oo iga tegay haddana miyaanan kaa samri karin maxaa dee kaa daba dhigayoon markaad ii qushuucsanayd markaad qalbiga u lahayd weliba igu qanacsanayd waa nin kasta kugu qoree haddaanad i qaabilayn maxaad ii qasaarso dhankaa qabay lahayd haddana waxaan kaa dhabayn maxaad waqtiga iga luminaysa markaan qeyrkaa tirtiray markaan hurdadii qawaday cillada keligii qatomay qalooday dadkayga nacay hurdada qudcinteeda jaray qushuucay dartaa fikiray jacaylkaagiina qiray haddaad tiri iga qalee anaa qof xun aaminee karaankaa qoslado markaas ka wada dhiibay haddaad igu tiraada siida wallaahi xanuun qurxi waa tii hodee quraysh baad ahayd qoraxda midabkaad lahayd wuxuu yihi qurxi waa tii hodee quraysh baad ii ahayd qoraxda dhalataad ahayd midabka qamarkaad lahayd wejiga qorqormaad lahayd ilkaha qabash baad lahayd aboor qulqulaysa oo qaboojo naftaad ahayd waxyaalahaasoo waxyaalihii dee laygu soo jiitay isagana hawaay nolosha qeyraan mutooqisa iga soo martee qadarka rabbi baa wadee adaa qasabii dilee nabarka qalbigayga yaal wadnaha qalan baa ka daran quluubta jabtaa il daran qof kale rabin baa ka daran ifkana samir baan qorshayn dhibkana anigaa qarsanay indhaha qeyd baan ku xidhi hablaha qalanjada ka roon hadduu damacii qabtana qalbiga anigaa qufuli qasnada meel baan ku ridi furaha ruuxay qabtaan kolkaa qoysaan la digi baan qorshayn dhibkana anigaa qarsanay indhaha qeyd baan ku xidhi hablaha qalanjada ka roon hadduu damacii qabtana qalbiga anigaa qufuli qasnada meel baan ku ridi furaha ruuxay qabtaan kolkaa qoysaan la digi yani mar dambe is wada dhiibi maayeen mustaqbaluun uun baan dee sugayaa buu leeyahay qoontii anigaa dhayani qudhana dhakhtar baanu noqon afkana qaalidan ka jari kashaanu qalqaalin goob dumarkaan kaga qarshaye qastigeedii goysay bay nafteedu ka qoomameen xusuusuu hawaan qayxi buuhi marugtaadii qooshtay baan qiyaamaha soo bandhigi qabkii kibirkaad wada ayaantaa laguu qaban jannada qalad baad ka noqon wadada naartaad qulquli anigu qasrigii jannada ayaan qolalkiisa degi adoo qaylinaya baan anigu qasalahantii istakfurna horta intaa ilaahay intaa uma ilaahay buu ku reebay ilaa akhiraasinaas ku raacdaan moogti markaas ka dareen kuunbuu haaya markii dambe maanso ballantuu janno eeba weeyey laydhaa baan sameeyey maansada waxaa ka mid ahayd oo tanay la socotay raaligelin bahayd sidaan ahay eheladeedu dharaar kuma warsamaan haddaad tahay ruux islaama miyaad urugada jacaylka ku eegan lahayd naftayda in badan waan kuu hiloobay weliba kaa ahaani waayey ammaan iyo heesafkaygu ereya kuu tiri macaane abaalada kuu sameeyey sidii yoon ahay amxaarayn adigu eegta maaha waxaa ka mid ahayd maansada awoodaha eeba weeye amuuraha nagu dhacee inaanu adkaysto weeye axdana aan yaraysto weeye inaan kuu ooyin weeye inaan ku ilaawo weeye weliba kuu duceyo weeye adina marwo noqoto weeye ubadka aad koriso weeye ninkaaga aad deecdo weeye ubaxya aad siiso weeye iftiin u ahaato weeye haddaan ereyada ildayo tixaa kuu soo afmeero dunidu waa laba ayaano ballantu janno eeba weeye jannadan markii dambe ku kala tagnay hadalka dambe ka dambe la qaatay haweynoo jannada baan ku idhi markaa maasaasina halkaasay iyaduna maraysay waay waqtigaan ugu yar adiga laftarkaaga howlo aad lahayd gabagabadii barnaamijkan soo gaadhnay waxaa jira maansooyin yara ammaan ah oo tirisada dhanka hablaha bal mariya laba nooga soo qabo maansooyinka waxaa ka mid ahaa xagga ammaanta yaa dabeecad ku gaadha yaan ku doorsan haweenka yaa dareenka la nooca yaan daryeel la sima yaa da-deed ahoon dabadeed cishqiya
taasoo kale way jirtay hadda noo sawirka waxaa ka mid ahayd oo kale waxaa tahay dhammaystiraya horoon waxaa tahay dhabaal qurux lagu dhigay dhan kastaba rabbaa ku dhammaystiree ma ruux ku dhig murabi dunida dhigay dhalaaliya iftiin dhawankaaga nuur wejigaaga dheeh dhoolaha caddaan dhexdu taakada quruxoo dhan baad dhaxlaadu tahay dhalanka wacna dhaqan hooyaley kun haweenu dhigan asaageedu dhilan oon habeenu dhixin ceeb iyo dhagxumo waa adi dhammayst dhibta iyo maxaa dhexaniga xigta dhabadii liftiya rajay dhistaa maxaa sida dhalaan dhabtaygu sitaa dhibyaraanadaa hodan ila dhasho wanaagan dhawan maxaad igu dhaqdaa taasi maase dheeroo dhammaystiradhaaba ka mid ahayd de waxaa ka mid ahayd oo kale xagga intii dhereed u sheegana saad sidii dhabiga u dhaaftay korkoo allihii ku dhalee dhabeel ku qoraa dhaliil iyo indhaka ka duwee miyuu dhagax buuri dheema noqdaa taasoo kale maase kale waayahay mar kale ayaan soo noqon doonaa boonshaar waqti badan wada joognay haddana dee waansooyinkii iyo sheekooyinkii lama kala dhamaysanayo mar labaad iyo mar saddexaad waa isu soo noqonaynaa dee aad baan kugu mahad celinayaa sida waqtigaaga wanaagsan igu soo hortay asxaabtaydana waxaan leeyahay kor ha naloo qaado abwaankana gabayadiisa iyo shaqisooyinkiisa meel dheer la gaarsiiyo hay-adna maxaad leedahay aad iyo aad baan horta walaal adiga ku mahad celinayaa marka hore asxaabtaadana waa salaamaya waana mahad celinayaa insha Allah marar badan baynu soo noqon doonaa insha Allah waanu insha Allah barnaamijyo kala dhamaysan mayno aad baan adiga asxaabtaada walaal ku mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dhanka kamarada Ridwaan Yara ku sugnaa habeentii hagaajinta waan isla Ridwaan waa Maxamed Saqadi iyo Munaasaqadi media idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh